أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي يا إلهي بقلبي للرشاد. سيرة كلما سيرة داخل أصحاب الرسول محيها يستنى عالم كمرك الله يقول قوة قال الله هيستان يا أصحابته وحي هيستان أصحابته حمامه لكن سلة بالله بيلها العلاقة مع الله درسي قانا يكقاتين خاتم الأنبياء بيكقاتين خاتم الأنبياء غزوة ذات الرقاع مركي أصحابته كسر العمين وقت الظهر جيت هاد معاه بالنبي قول دافين يكون جيدك لي رادسدين مركا ابو النبي قول سيفتي سوق هذه جيت كايو سوداي مركا النبي قول جيت كي هو سيحدي يا انا دبا سعوده من مشركه واعرابيه غورة بن حارث لديه جري ايا دبا سعوده ريركيسي با لا سو دميي dadkiisii baa la soo laayay xoolihiisii baa la soo qaatay inuu ninkaas ciiray carowha ya nabiga asxaabta inuu cidla ku helo uu jeedaa nabiga geedkii hoos urday kaligii asxaabtuna way seexdeen waqti dhahira wayaan cadaad waa kulay geed har fiican baa nabiga loo dhaafay seeftiisa nabigu geed ku sudhay uu seexday nabigu kaleey salaatu wasalaam ninkii nabiga intuu dul yimiday ayuu seeftii galka ka saaray markaasuu nabigu ku kacay rasuulka markaasuu nabigu indhaha kala qaado waa ninkii dul taaganba markaasuu yidhi alaa takhaafuni miyaanad iga cabsanayn markaasuu nabigu yidhi may kaa cabsan maayo markaasuu yidhi man yamnacuka minii ayaa iga kaa mancin kara maanta markaasuu nabigu yidhi allah saddex jeer weli asxaabta nabigu warka maaya qisada dagaalkaa meesha ka dhacaya nebi maxamed mooyaane asxaabtiisu warkama qabaan way hurdaan waa sida xadiis ku dhigayo seeftii baa ka dhacday ninkii isla markii nebigaa seeftii qaatay nebigu markuu seeftii qaatuu ninkii qabtay ayuu nebigu asxaabtii u yeedhay soo kaca way soo kaceen markaasuu nebigu qisadii meesha ka dhacday min alif ilaa ya ayuu asxaabta uga warramay muxuu uga jeedaa nebigu qisadaas ina hada اخترد علي سيفي وأنا نائم فاستيقظته وفي يده سلسا فقال لي ألا تخافني فقلت لا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله 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 فسقط السيف من يده قصة ميشا كد علي أصحابته ما جوجين لكن نبي أوقو الرمايا نحو نبي وجد قصة أوقو الرمايا توكل كبريا توكل اعتماد على الله مخلوق دن سدو دنيهي لا يتحرك إلا بإرادته ولا يسكن إلا بإرادته وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دعاء بعد كل السلام النبي دعاء أخرجري أمتنا النبي دعاء أوبري دعاء سوى إيمان والنفي إثبات قرآن هو إيمانيات قصص الصحابة يسير دي نبي محمد ولن إيمانك كبر إسا أحد غزوة أحد هي غزوة بدر هي غزوة حنين أي من سد دروس بأمد النبي قدوبا هذا أمد فهم الدين كم دروس في هذا الغزوات بدر تضباطا قال إلايين تضباطا قال نواحدين أحد تضباطا أصحاب النبي قال إلايين انت صعيد فرقنا ولا قد داوعي لبدا غزو علماء وحير هذا من كم منفعة بدن ابن قيم الجوزي زاد المعاد وحكو شاقي غزوة أحد أيها كم منفعة بدن كفائدة بدن كعبر بدن كدروس بدن كفتوحات بدن كو طلبات حلو قادي عدوكي قدها كجري بالو قادو صدح بقول منافقين اسلام مركي بقولوا بحر بدر لما قرأ المنافقين لكن منافقين ده مسلمين ده كل احنا والله قرت مالك درسي قال لبعض وحويا وهكذا الله تسي أمة النبي إن مسلمين إلى دنسانا أي ماشي كجرتو إلى هاي قاركود وشهداء كده درسي كلا وحويا جماعة النبي قالوا بورصة دقة جبل الرماة
halka haddaan adkaaniyo haddiina naga adkaadaba ha ka dhaqaaqina buu rasuulku dagaalkii baa bilaamay isla markiiba gaaladii waa la jebiyey haniimadii bay gurteen muslimiintu jamaacaddii uu nebigu buurta dulligay ayaa iskhilaaf qayb waxay yidhaahdeen dagaalkii u dhammaadee haniimadii xoolaha guranay na dhaadhiciya qolo waxay tidhi nebigu ha dhaadhicina buu dhe joogi xaggay u dhaadhacaysaa khilaaf maxaa dhacay khilaaf ijtihaadi weeyaan waa khilaaf ijtihaadiya weeyaan jamaacaddii qaarna way hadheen oo amarkii nebigay fuliyeen qaarna way soo dhaadhaceen isla markiiba khaalid bin waliid iyo cikrima oo ciidanka fardaha ee mushrikiinta watay ayaa arkay ciidankii buurta dhabarjebinta ka ilaalinayey oo kala jabay isla markiiba dhabarjebin bay ku soo sameeyeen muslimiintii oo haniimadii iyo xoolihii guranaysa ayay xagga dambe kaga yimaadeen 70 asxaabtii nebiga ka mid a ilaa 71 bay laayeen nebi maxamedna dhaawac baa loo geystay maalinkaas aaway nusradii nebi maxamed uu dhex socdaa asxaabta abubakar uu dhex socdaa cumar uu dhex socdaa abubakar uu ku jiraa cusmaan uu ku jiraa mubashiriintii way ku jiraan muhaajiriintii way ku jiraan ansaartii way ku jiraan ahlulbeder oo dhan baa joogta ducadood waa mustajaaba cid ilaahay uga dhowiye kama jirto maxaa looga adkaa nasrigii maxaa looga rafacay waxaa la yidhi nasriga waxaa looga rafacay jamaacadda nebigu uu buurta dhigay ayaa amarkii nebiga jebisay maadaama amarkii nebi maxamed aad jebiseen fa markaa nusraddii ilaahay waa niga rafacay weeyaan hal amar oo nebi maxamed ka soo fulay hadday khata ijtihaadiya ay u jebiyeen oo ilaahay nasrigu ka rafacay ummaddaa maanta dhibaatada ku jirta ee diintii ka fogaatay sidee bay nasri ilaahay ku filan inay ku hesho nebi maxamed oo jooga ayaa nasrigii laga rafacay ummadda markii amarkii nebiga ay jebiyeen waa darsi ilaa yowma alqiyaama ogaadaa lagu leeyahay aayaddii maxay ahayd maclim minkum man yuriidu awalkeydii id tusciduuna walaqad sadaqakum allahu wacdahu إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم ليبتلي ولقد عفى عنكم أفر تاسا كنا فشل تنازع حب الدنيا معصينا وكنا أمرك النبي قد إلا جميع معصية بعد haddii asxaabtii nebi maxamed cid ilaahay uga dhow caalamka aysan jirin amar nebi maxamed ka soo fulay qaarkood hadday ijtihaad u jebiyeen nebigoo la jooga nasrigii laga rafaco 70 nin ku dhinteen oo nebi maxamedna lagu dhaawacay ummadda maanta taariku salaagii ciidda ka batay nasri ilaahay see ku filanaysaa allah ina fahmo فولا ليال ما هو الحل حل ومعي إقامة الأمة على الدين حل كلمة جري وإن أمد مر لبعض لقود دالا ولقود استاجيا ما كان عليه النبي والصحابة أصحاب النبي محمد هي الزمن في النبي أمد وحي قبت إيماني الدين هذا مر لبعض أمد وصول نغطه قرقار كي إلهي هلكي سيبو تاقي قرقار كي إلهي وهلكي ديار بو إلهي ليها قرقار كي لكن عندي لو قرقار يا عالم في جرمان gargaarka waxaa la sheegay in muuminiin loo gargaarayo in allaha maca aladiina taqow maciyada ilaahay muttaqiin baa la sheegay inay helayaan aaway muttaqiintii aaway muuminiintii wallahu yuxibu almuxsiniin baa la yidhi aaway muxsiniintii wallahu yuxibu asaabiriin baa la yidhi aaway saabiriintii ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi aaway saabiriintii maanta sifaadkii qur-aanka way ku taallaa